salaan kadib halkan saaka waxaan isugu nimid anagoo ah ama ka kooban dhammaan bahda waxbarashada ee deegaanka Cadaado iyo nawaaxigeeda waxaan isku keenay oo halkan saaka aan isugu nimid inaan soo dhaweyno baaqi ama go'aankii wasaaradda waxbarashadu ay ka gaartay imtixaanaadkii go'aankaas oo ahaa imtixaankii markii uu fashilmay oo dhammaan baraha bulshada oo imtixaanka galay in si degdeg ah imtixaanka loo joojiyo dibna loo qaado 27 bishan maantay ayaan halkaan isugu nimid annagoo marka ka faa'iideysanayna fursadan qaaliga ah wasiirka waxbarashada wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Goodax Barre annagoo ku amaanayna go'aankii geesinimada lahaa ee uu ku badbaadiyay wasaaradda waxbarashada sababtoo ah waxaan dareensanahay ama aan ognahay haddii imtixaankaasi uu fashil ku dhamaan lahaa oo 10 maado ayadoo baraha bulshada laga helay oo imtixaankaasi saas gabagaba ku noqon lahaa in barnaamijkaasi uu noqon lahaa caqabad hortaagan dhowrka sano ee soo socota wasaaradda waxbarashada Soomaaliya intii marka arrintaasi aysan dhicin Allah subhanahu wa ta'ala wasiirkii iyo madaxdii wasaaradda Ilaahay wuxuu waafajiyay in arrinta go'aan ka gaaraan oo ay joojiyaan imtixaanaadkii markaas soconayay ayagoo go'aankooda markaas ka dhigay 27 bishan in imtixaanka dib loo galo anagu haddii aan nahay bahda waxbarashada ee ku sugan degmada Cadaado iyo nawaaxigeeda imtixaankaas waxaa loo gareysay arday gaaraysa 315 arday ka kala timid magaalada loo yaqaan Camaara Baxdo Cadaado iyo Godin Labe anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada maamulka Galmudug iyo bahda waxbarashada ee ku nool degmada Cadaado iyo nawaaxigeeda waxaan qaadanay go'aan ah inaan soo dhaweyno marka koowaad iyo marka labaad waxaan hambalyo u direynaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxaan leenahay go'aan waxaad gaartay ahmiyad u yeelan doona ama taariikh